موسى حسن يوسف موسى سكول كيسي 20 academic and training xubnaha komishanka kadib markii siifiyadooda golaha laga hor akhriyay ayaa xildhibaanadu ay u codeeyeen sidaas ku waayay kalsoonida golaha toddobada xubnood ee komishanka ayaa afar ka mid ah ay ku guuleysteen codka kalsoonida ee xildhibaanada halka saddex ka mid ah ay waayeen Axmed Cismaan Xasan waxa ogolaaday 39 madaxweynuhu soo magacaabay 12 baa diiday 69 baana fadhiyay 18 way ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaas ku waayay kalsoonida golaha saddexda xubnood ee goluhu diiday laba ka mid ah waxa soo magacaabay madaxweynaha halka xubinta kalena ay guurtidu ay soo magacawday geesta kale guddigii diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa iyaguna markii ugu horeysay sheegay inay bilaabayaan qabashada araajida ciddii rabta inay furtaan urur siyaasadeed 7 maalmood kadib in laga bilaabo maalinta ay taariikhdu tahay 27 Juun 2022 ay si rasmi ah u furan tahay diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in muddada diiwaangelinta ururada siyaasaddu tahay 45 maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa 27 Juun 2022 hawshan diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa khilaaf weyn oo siyaasiya ka dhex abuurtay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka iyadoo mucaaridku ay ku doodayaan in doorasho ka soo hormartay madaxtooyada aanay aqbali doonin mucaaradka ayaa sidoo kale ku doodayay in xeerkii lagu dooran lahaa ururada siyaasaddu aanu diyaarsanayn balse xukuumadda iyo xisbigeeda ayaa qaba doodtaasi ka duwan oo ah in xeerku uu sheegayo in 6 bilood ka hor maalinta liisanku uu ka dhacayo xisbiyada mucaaradka la furo diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo in maxkamadda sare ay qaraar ay ka soo saartay xeerkan lagu muransan yahay ee diiwaangelinta ururada siyaasadda waxa iyaguna soo kordhaya siyaasiyiinta ku dhawaaqay inay furanayaan urur siyaasadeed ilaa iyo imkana 13 urur siyaasadeed ayaa lagu dhawaaqay kuwaasi oo sheegay inay u diyaar yihiin inay ka qayb galaan doorashada ururada siyaasiyiinta Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa